wasiiradda haweenka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya binti Ibrahim Cali ayaa eedeyn u jeedisay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyadoona ku eedeysay inuu magacaabay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Shabeellada Hoose ayna sheegtay inay taasi shaqadiisa ahayn ayna jiraan dad kale oo arrimahaasi qaabilsan oo wasaaradda haweenka koonfur galbeed ay ugu horeyso arrimaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo xaaladaha ka jiro waayadan dambe aad ayaan ula soconaa dadkana way og yihiin oo waa xaalad xasaasi ah ka jirto oo wali aan saldhiganin iyadoo arintaas jirto ayaa waxa dhacday in gudoomiyihii gobolka loo magacaabay Ibrahim Najax oo xadgudub sameeyay oo sameeyay arin aan dastuurka waafaqsanayn kana booday sharciga u deganaa dawladda koonfur galbeed dastuurkeeda Ibrahim wuxuu sameeyay isagoo cidna la tashanin inuu magacaabo gobolka haweenka gobolka koonfur galbeed u magacaabo gudoomiye gobol oo isaga oo wax shaqo asan ku lahayn ayna quseynin isla markaasna ay xadgudub ku tahay tan kale isaga waa gudoomiye gobol dawladda koonfur galbeedna way dhisan tahay hay'adaheedii wasaaradihii wasaarad walbana shaqadeeda si gaar ah ayay u qabsataa tan kale waxa intaas si dheer Ibrahim Najax oo sameeyay ninka gudoomiyaha gobolka ah markii ugu horeysay gobolka ayuu qalalaasa ka shiday annagoo haweenkii ah oo nabadeyn wadna oo gobol nabad dhignay afgooye ilaa iyo gobolkii ilaa tuulooyinka aan gaarsiinay intuu naga tabatagay ayaan xarbihi soo xirxirnay oo furay oo dadkiina qalalaasa ka dhex sameeyay eedeyntaani loo jeediyay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo la xiriirnay ayaa noo suura galin inaan wax ka weydiino eedeymaha ay wasiiraddu u soo jeedisay Qadra Cabdi Cali Hon Cable TV Muqdisho.